وعنا wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka ee Maracadda Show waa 13 bisha Juulaay sanadka 2026 madaxweyne Trump hanjabaadiisa iyo Iran hanjabaadeeda midkee ayaa guuleysan doona yaana reerka u hari doona qorshaha cusub ee dawladda Mareykanka iyo hubka cusub ay bilaabeen inay adeegsadaan iyagoo Iran wax ka bartay maxaa ka jira in Maxamuud Ahmadinejad madaxweynaha hore ee dawladda Iran xabsi guri la dhigay maxayna kaliya warbaahinta Israa'iil iyo Mareykanka ay macluumaadkan u baahinayaan waxaan kula wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqyada guud ahaan ee gobolka bariga dhexe ka socda iyo cabsida caawa jirta Yemen xaalad kale ayay gashay xuutiyiinta dalka Yemen suuragal ma tahay markaan inay isfarasaaraan dhanka iyo dawladda Sacuudiga heshiisyadii xabad joojinta hore loogu jirayna maxay xuutiyiinta uga baxeen marxaladii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada socda garoomada la duqeeyay diyaaradii ka timid dhanka iyo Iran ee halka ay ka degtay iyo xiisada halka ay ka soo bilaabatay labadaas qodob ayaan si gaar ahaaneed qaybtan diiradda ugu saari doona insha Allah taala soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo Maracadda Show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxa uu cumreynayaa Abu Abdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo markale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaan ku hormarayaa xaaladda gobolka bariga dhexe markale xiisad weyn ayaa ka jirta Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay inay duqeymo culus ay ka fuliyeen gudaha dalka Iran gaar ahaan magaalada Bandar Abbas markii ugu horeysay waxay sheegeen in ay duqeeyeen ama ay beegsadeen saldhig ciidamada badda ee dawladda Iran ay lahaayeen halkaas oo la rumaysan yahay inay ka soo dhaqaaqayeen doomaha dheereeya ee kaligood iska xeynaya waana duqeyntii ugu horeysay oo taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ay shaaciyaan duqeyntan macluumaadka ku gadaaman iyo xaaladda guud ee gobolka intaanan eegin aan kula wadaago laba sheeko oo galinkii dambe ee maanta warbaahinta loo dusiyay sheekadaas oo si weyn loo hadalhayo madaxweynaha Mareykanka kadib markii warbaahinta uu la hadlay waxa uu yiri 90% waxaan hubaa gabi ahaanba inuu geeriyooday hogaamiyihii dawladda Iran Mujtaba Khamenei ma ahan Ali Khamenei wuxuu yiri Mujtaba Khamenei waxay u badan tahay inuu geeriyooday oo maba noolaba marka la eego duqeymihii ugu dambeeyay iyo dhaawacii soo gaaray hogaamiyahan intii lagu guda jiray wareegii koowaad ee dagaalka ama marxaladii labaad ee dagaalkii bilowday bishii February 2026 maadaama uu hadalkaas uu yiri marka waxa durba sheekada dhinaca kale u weecatay warbaahintii ay falanqeynayaan waxaana moodaa in laga sii jeediyay marxaladda gobolka ka jirta Iran marka waxaad moodaa dagaal dhinacyo badan in lagu soo qaaday dhinaca warbaahinta iyo duqeyn isbarbar socota iyo sidoo kale go'doominta Mareykanka uu ku dhawaaqay maanta sidoo kale dawladda Britain waxay ku dhawaaqday inay ciidanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iran ay u aqoonsatay inay qatar amni ku yihiin dawladda Britain cid kasta oo la macaamisha sirdoon ahaan iyo si kastabaana lagu xukumi doono ilaa 12 sano tanina waa qayb kamid ah dagaalka weyn ee dhanka warbaahinta dagaal kale ayaa jira oo isagana dawladda Iran lagu qaaday kaas oo ah dhanka duqeynta oo meelo badan maanta la duqeeyay iyo go'aanka madaxweyne Trump uu qaatay dhinaca kale warbaahinta Mareykanka iyo sidoo kale warbaahinta Israa'iil si gaar ahaaneed warbaahinta Israa'iil ayaa maanta daabacay warbixin isku mid ah waxa diiradda lagu saaray oo banaanka la keenay xogta ku saabsan in xabsi guri la dhigay madaxweynihii hore ee dawladda Iran Maxamuud Ahmadinejad sabab la xiriirta inuu Israa'iil la shaqeynayay warbaahintu qoraalada aad bay u dheer yihiin laakiin haddii aan soo koobo nuxurka qoraalkooda waxa ay dacood Ahronoth Jerusalem Post Maarif New York Times oo Mareykanka laga leeyahay iyo warbaahinno kaleba ay daabaceen in Ahmadinejad xabsiga loo dhigay sabab la xiriirta ama xabsi guri looga dhigay sabab la xiriirta inuu Israa'iil doonayo inuu la shaqeeyo Israa'iilna iyada ay ka shaqeynayso inay xiriir la sameeyaan sirdoon ahaan loo tababaro isaga laga dhigo hogaamiyaha cusub ee dawladda Iran ee bedeli karaya hogaanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iran waxa la sheegay xitaa mar in madaxweynaha Bulgaariya miyo ahaa madaxweyne dawlad Israa'iil isku wanaagsan yihiin inuu casuumay si uu munaasabad kaga qayb galo halkaas oo la doonayay in yaani sheekada looga dhaadhiciyo ama aragtida lagula wadaago shakigan ma aan wax hadda soo baxay hore ayuu u jiray laakiin warbaahintii hadda waxay leedahay xabsi guri ayaa laga dhigay ciidanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iran gaar ahaan sirdoonkooda ayaana baaritaan badan sameeyay markii laga shakiyeen hadda xabsigaas ayuu ku jiraa mararka qaar waxay daabacayaan warbixintooda inay ku sheegayaan in afayeenkii Maxamuud Ahmadinejad Israa'iil xiriir ay la sameysay isagoo ah ruuxa xiriir ka shaqeynayay isku xirka inuu Israa'iil ninkan yaani la macaamilo iyo waxyaabaha la midka ah il sirdoon oo u noqdo hoggaan cusubna mar kale laga dhigo iyadoo laga faa'iideysanayo khilaafka Ahmadinejad iyo mas'uuliyiinta dawladda Iran u dhaxay marka sheekadu aad bay u dheertahay laakiin xurka intaas ayuu ku kooban yahay laakiin aan ku raaciyo
kaliya warbaahinta Israa'iil ayaa macluumaadkan daabacday iyo wargeyska New York Times oo Mareykanka ka soo baxa mana jiro faahfaahin kale oo dheeraad ah inkastoo warbixintu aad ay u dheertahay laakiin intaas ayaan ku soo koobaya maadaama aan waqtiga ku xisaabtamayno dhinaca kale markaad eegto xaaladda marinka Hormuz waxa laga yaabaa dagaal muhurto inay noqonayso oo dagaal kale mar kale dib loogu laaban doono marka la eego go'aanada madaxweyne Trump uu qaatay halka ay Iiraaniyiinta ay taagan yihiin iyo dhaqdhaqaaqyada guud ahaan ee gobolka ka socda shalay waan idinla wadaagay qorsho midowga Yurub ay wadaan qorsho dawladda Cumaan ay ka soo shaqeyso marinka Hormuz ku saabsan iyo qorshaha dhanka awoodda ee wadamada gaashaanbuurta NATO ay doonayaan inay marinka Hormuz miinooyinka ay kaga saaraan waxaad moodaa talaabadii qatarta badneed in hadda la qaatay oo ah in si awooda marinka Hormuz lagula wareego waliba si gaar ahaan madaxweyne Donald Trump ayaa go'aankaasi qaatay oo wuxuu yiri يعني 40 سنة كهر أيام أهد قان كان إنا قارنو منا أهان إنا وحي هذا كدم بيان إيران أن أضرب فريسنو معمول كمرين كهرمز إيران واحد هذي مدحيا نيوكلير أهون لقى قاضو أيو كم مهم سيا مرين كهرمز معمول كيس إن لقى وريجيو ما حدا عيسى عادي لصور دافي madaxweyne Trump wuxuu si cad u sheegay in dib loo soo celin doono go'doomintii Iran lagu hayay si gaar ahaan dekedaha dalkaasi Iran in aan shidaal laga dhoofin si rasmi ah durbaba loo dhaqan galiyay xalay warbixinta waxaan idin kula wadaagay in Mareykanka maraakiib uu leeyahay la soo dhaqaajiyay maraakiibtaas oo ujeedada laga leeyahay aysan ahayn kaliya inay badda iska dul sabeeyaan ujeedadu ay tahay in howlgal ay fuliyaan hadda howlgalku wuxuu noqon doonaa go'doomintii Iran la saaray bishii ina dhaaftay ee April mar kale dib in loo soo celin doono lana doonayo in shidaalkii iyo wax kastaaba laga qabateeyo madaxweyne Trump sidoo kale go'aan kale ayuu ku dhawaaqay go'aankaas oo muujinaya in waxa la isku hayo in maamulka marinka kaliya uu san ahayn dhaqaalaha marinka Hormuz laga doonayo inuu yahay wuxuu yiri waxaan 20% canshuur ah ku soo rogi doonaa markab kasta oo marinka Hormuz ka gudbaya yani maraakiibta marinka Hormuz ka gudbaya canshuurtaas ayaan ku soo rogi doonaa wadarta gaadiidka ayaa la isticmaalay oo lama kala saarin marka 20% hadii canshuur lagu soo rogo taas waxay ka dhigan tahay dhaqaale badan in laga sameyn doono marinka Hormuz maxaa lacagtaasi uu madaxweyne Trump doonaya in lagu qabto wuxuu yiri waxa lagu qaban doonaa ilaalada marinka Hormuz 20kaasina si cadaalad ay noqon doonto oo markab kasta ayaa lagu soo rogi doonaa waxaana lagu dabooli doonaa wuxuu yiri qarashka lagu fulinayo howlgalka lagu hubinayo badbaadada marinkaasi iyo amniga guud ahaan ee gobolka oo aad u kacsan yani anaga lacagta qaadanayno markab kastaana amnigiisa anaga ayaa ka shaqeynayna lacagtaasina waxaan doonaynaa inaan amniga yani taas waxay ka dhigan tahay waxa la isku hayo marka inay tahay lacagta Iran arintaasi si weyn ayay kaga soo horjeesatay oo afayeenka Qatim al-Anbiya u hadlay waxa uu yiri marnaba ma ogolaan doono Mareykanka inuu maamulo marinka Hormuz haddii qorshaha markii hore uu ahaa Cumaan iyo Iran inay isla maamulaan oo Cumaan ay soo jeedisay waqooyiga iyo koonfurta labada dhinac in loo kala saaro marinka Hormuz halka maraakiibta ay ka gudbayaan hadda sheekadu taa way ka duwan tahay markii hore waxa la lahaa 2% iyo 1% canshuur ah hal lagu soo rogo maraakiibta laakiin Trump oo awoodiisa adeegsanaya 20% ayuu yiri waxaan ku soo rogi doonaa canshuur maraakiibta halkaasi ka gudbaysa canshuurtaasi sida loo qaadayo exactly wax lagu sameyn doono sida loo kala qaybsanayo maadaama Iran meesha ay joogto Cumaan ay meesha ay joogto dawladaha kale ee qaliijka Jarmalka Faransiiska Ingiriiska ayaga xataa arintan yani doonaya inay ka faa'iideystaan waa marxalad kale si gaar ahaaneed ayaana barnaamijyadeena ugu falanqeyn doonaa insha Allah ta'ala Iran hadii ay taagan tahay marka marinkan Mareykanka uma soo dhawaan karayo Mareykankan uu leeyahay awood ayaan marinkan yani kula wareegi doonaa waxa la isweydiinaya sheekadaasi suuragal ma noqon doontaa oo ma dhaqan gali doontaa aad bay u adkaanaysaa marka la eego miinooyinka Iran halkaasi ay ku aastay doomaha dheereeye ay isticmaalayso in marinkaasi Mareykanka uu la wareegana shuruudo iyo marxalado kale oo aad u adag ayaa hortaagan kuwaas oo u baahan in laga soo adkaado si gaar ahaan juqraafi ahaan Iran iyo halka ay ku taalo maanta gelinkii dambe duqeymo culus ayaa mar kale Iran gudaheeda laga fuliyay si gaar ahaaneed magaalada Bandar Abbas iyo magaalooyin kale oo dhawaaqa qaraxyo xooggan laga maqlay midowga Yurub wuxuu soo jeedinayaa marinka Hormuz amnigiisa in laga shaqeeyo meel amni ahna laga dhigo dhinaca kale markaan eegno mas'uuliyiinta dawladda Iran goordhow iyagana qoraal ay soo saareen waxaana ay yiraahdeen jawaab cad ayaan ka bixin doonaa dhammaan talaabooyinka Mareykanka uu qaaday iyo duqeymihii la fuliyay sidoo kale arintan waxay saameyn ku yeelatay dalal badan oo qaliijka ah oo iyagana xaaladdu aad bay u adag tahay sheekadan ma gaari doontaa ilaa marinka Baabul Mandab ama biyaha badda cas waa waxyaabaha la isweydiinayo markii ugu horeysay
taliska dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM loo yaqaan waxay yiraahdeen hub cusub ayaan isticmaalnay halkii aan ka isticmaali lahayn maraakiib waxaan bilownay inaan isticmaalo iyo waliba diyaaradaha droniska waxaan bilownay inaan isticmaalay bay yiraahdeen diyaarado dronisa oo kaligood iska xeynaya iyo doomo dheereeya oo kaligood iska xeynaya oo aan dib u soo laaban doonin howlgalka soo fulinaya horena isu qarxinaya يعني waxaan ka eegnay bay yiraahdeen istaraatiijiyada Iran maxaa yeelay diyaarad dronis oo qiimuhu yar yahay ay noo soo diraysaa qarash badan ayana naga baabiinaysaa in madaxweyne Trump uu qaato go'aanka marka Hormuz lagula wareegayo dekadaha Iran lagu go'doominayo malaha waxay moodaa in aad uu kaga carooday wixii ka dhacay Kuwait iyo Bahrain oo xarumo muhiim u ah Mareykanka laga duqeeyay ama laga baabiiyay arintan ama ciyaartan waxa daawanaya Israa'iil oo si weyn u doonaysa dagaalka in dib loogu laabto xarumo ay bartilmaameedsan lahaayeen loo ogolaado maantana duqeymo culus ay Israa'iil mar kale waxay ka fuliyeen gudaha marinka Gaza iyadoo duqeyntan la sheegay inay tahay tii ugu cusleed muddooyinkii ugu dambeeyay iyo markii heshiiska xabajoojinta la gaaray marka la eego dhinaca kalena mas'uuliyiinta dawladda Iran dhankooda waxa lagu waramayaa inay codsi u direen dalalka Khaliijka oo ay yiraahdeen haddii aad doonaysaan inaan jugta idinku haynaan idinka joojino waa inaad yacdiinkana aad ogolaataan in dalalkeena aan duqeyn laga soo qaadin yani aan Iran laga soo duqeynin hadda marka waxaad moodaa inay yani carabti iyo islaamka iyaga dhexdooda ee isku baaba'ayaan maadaama Mareykanka askarna aysan kaga geeriyoonaynin gantaalada dawladda Iran ee gudaha dalka Mareykanka aysan gaaraynin laakiin danihii Mareykanka ee gobolka iyo joogitaankiisii saameyn lagu yeelanayo inkastoo duqeyntii ugu dambeysay la sheegay ilaa ku dhawaad 6 askari oo ciidamada Mareykanka ka tirsan inay dhaawacyo ay soo gaareen xaaladda bariga dhexe inkastoo ay sii adkaanayso 5% waxa lagu waramayaa in qiimaha shidaalka gudaha dalka Mareykanka koror uu ku yimid iyadoo dhinaca kalena dawladda Iran goordhow war ay soo saartay waxaana qoraal ay soo saareen mas'uuliyiinta dawladda Iran ee ilaalada kacaanka ay sheegeen in 3 kamid ah ciidankooda ay ku geeriyoodeen duqeyn laga fuliyo gobolka Khuzestan mid kamid ah gobolada ugu muhiimsan ee dalkaasi Iran shalay sidaas oo kale xarumo muhiim ah oo shidaalka lagu farsameeyo gudaha dalka Iran ku yaala ayaa la beegsaday wax walba oo ka soo kordha marxaladan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah dhinaca kale xiisad aad u culus ayaa waxay ka taagan tahay gudaha dalka Yemen wixii ka dambeeyay markii dawladda Sacuudiga uu taageersan yahay ay gacanta ay ku dhigeen magaalooyin dhowr ah oo ciidankii mucaaradka ahaa ee Imaaraadka taageerada ka helay ay ka guuleysteen waxaad muddo Yemen xogaa marxalad degan inay gashay inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyay xiisad ay soo cusboonaatay saddexdii bishan aan ku guda jirno xoutiyiinta dalka Yemen ayaa isku dayay dhaqdhaqaaq inay ka sameeyaan magaalada Sanca diyaarad Iran ka timid ayaa waxay doonaysay inay wafdi ka qaado gudaha magaalada Sanca xoutiyiinta ayaa maamula laakiin waxa saaran godoomin dhanka hawada ah oo 2015 wixii ka dambeeyay hawada dalkaasi gaar ahaan magaalooyinka xoutiyiinta ay maamulaan waxa godoomin saaray isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayo godoomintii way iska indhatireen diyaaradii waxay ka dushay magaalada Sanca iyadoo wafdi 200 sida waxayna aaday magaalada Tehran si aaskii hogaamiyada dawladda Iran kaga soo qayb galaan shiicadii xoutiyiinta madalaysay loo diray gudaha dalkaasi Iran xiisadu marka waxay mar kale soo cusboonaatay dib u soo laabashada wafdigani shalay waatii aan idin la wadaagay in wafdigan loo diiday ama la go'doomiyay oo inuu ku adkaatay inay ka soo dhaqaaqaan gudaha dalka Iran sababtuna wax kale ma ahayn waa in garoonka Sanca la yiri kama soo degi karaysaan oo xukuumadda Sacuudiga uu taageersan yahay ay amar ay soo saartay maanta marka diyaarad Iran laga leeyahay ayaa wafdigii soo qaaday si ay Sanca uga dajiso laakiin garoonkii wadadii diyaaradaha ay ku dageysay duqeymo culus ayaa laga fuliyay waxa mas'uuliyiinta duqeyntaasi sheegtay mas'uuliyiinta iyo dawladda Sacuudiga uu taageero ama caalamku aqoonsan yahay ee dhinaca kale maamusha xoutiyiintii waxay yiraahdeen okay Sanca ma la duqeeyaha diyaaradan waa in laga dajiyaa magaalada Xudayda oo xoutiyiinta gacanta ku hayaan ayaa diyaaradii laga dajiyay wafdigiisa nabadgelyo ay halkaas ay kaga dageen markii wafdiga uu dagay xoutiyiintii war ay soo saareen oo waxay yiraahdeen wixii maanta ka dhacay magaalada Sanca waa laga shalayn doonaa jawaab cad ayaana ka bixin doonaa dhinaca dawladda Yemen marka ee caalamku aqoonsan yahay iyagana waxay yiraahdeen madax banaanideena lagu maxad gudbi karayo magaalooyinka iyo garoomada diyaaradaha yani waxa saaran godoomin diyaarad yani aan la ogolayna kama soo degi karayso gudaha dalka Yemen oo madax banaanida ayaa lagu xad gudbayaa taas marka waxay keentay maanta in gabi ahaanba gelinkii dambe la xiro qaar kamid ah garoomada diyaaradeed ee ku yaala magaalooyinka ay dawladdu ay maamusho gaar ahaan dawladda Sacuudiga oo sida weyn oo u taageero iyadoo laga baqayo jawaabta xoutiyiinta dalka Yemen
sheekada halkaasi kuma eke waxay cabsida gaartay ilaa gudaha dalka Sacuudiga xoutiyiinta dhowr jeer ayay duqeymo ka fuliyeen deegaanada dhinaca xadka ee Sacuudiga iyo Yemen ay wadaagaan gaar ahaan xarumaha shirkadaha Aramco ee shidaalka soo saaray dalka Sacuudiga ay ku yaalaan mar xitaa ilaa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayay gaareen inkastoo isbahaysiga hore 2015 xoutiyiinta la dagaalamay maanta sidii hore uusan u mideysneen haddana Yemen waxaad moodaa marka la dagaal sokeeyo in la gali karayo dhinacyadana ay dib ugu laaban karayaan xoutiyiintu waxay ku dhawaaqeen gabi ahaanba inuu burburay heshiiskii xabajoojinta ee hore loo saxiixay oo yacni hadda ay diyaar u yihiin in dagaal ay dib ugu laabtaan miyaga dhaxdooda ayaa markale qoorta isu gali doona mise duqeymiye ay ka fulinayeen gudaha Sacuudiga ayaa dib u soo laaban doona Sacuudiga hore xoutiyiintu way u leeshiyeen kadib markii Iiraan ay isfahmeen hadda Iiraaniyiinta oo dhinaca soo dhexmari doona miya duqeymo culus ka fulin doona gudaha dalka Sacuudiga mise Sacuudiga markale waxay dhihi doonaan sheekada halkii hore hal loo celiyo maxay Sacuudiga u diidayaan marka in diyaarad ka timid Iiraan ay ka soo degtay gudaha dalkaasi Yemen gaar ahaan goobaha xoutiyiinta ay maamulaan waxay rumaysan yihiin inay ku soo hoosgamban karayaan qubarro dhanka militariga ah in agab lagu soo qaadi karayo maadaama baaritaan aan lagu soo sameeyeen oo gudaha Iiraan ay ka soo baxayso xoutiyiinta deegaanada ay maamulaana ay ku soo degaysa diyaaradda marxaladaasi adag ayaa ka jirta gudaha dalka Yemen markalena abaabul ciidan oo xoogan ayaa socda baraha bulshada Yemeniinta markaad eegto waa sida Soomaalida oo kale sida isu rifayaan iyo qoraalada la isticmaalayo iyo sida la isugu hanjabayo iyo erayada la isticmaalayo markaad eegto xaaladaasi iyo wax walba oo ka soo kordhay insha Allah guud ahaan gobolka bariga dhexe barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada haddii aad halkan soo gaartay waxaan ku weydiinayaa su'aasha ah Yemen ma isleedahay xoutiyiinta ayaa ku awood badin karaya mise dawladda caalamku waa aqoonsan yahay marinka Hormuzna yaad isleedahay markaad eegto sida ay wax u socdaan waa uu maamuli doonaa dhaqaalaha loo wada cararayana gacanta ayuu ku dhigi doonaa aragtidaadana la wadaag like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa Abu Cabdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahadiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo